gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group Maxamed Siciid Ducaale oo isna kulanka hadal ka jeediyay ayaa tacsi taala mid diray isagoo ka sheekeeyay aqoontii oo u lahaa wa inna raaji'un baanu leenahay ilaahay u naxariisto samiriye iimaan baanu leenahay waa nin qaran buu ahaa nin ma ahayn nin qoys wuxuu ahaa nin qaran ma ahayn reer Jabuuti wuxuu ahaa nin Soomaalida dadkan madaqadan jooga oo dhan oday u ah wuxuu ahaa nin la xasuusan waxaan soo gocday markaan baanka aasaasay isaga taladeesa lahaa runtii isaga ay Jabuuti kaale isaga ay halkan kaale isaga ay daarta gal sidaa darteed ba bangiyadu ku soo degeen bangiyadan maanta badan gedi jaamac baa ka mas'uul ahaa keena gudoomiye ku-xigeenka golaha ganacsatada Soomaaliyeed Cabdirashiid Haybe Dubad oo isna kulankaas ka hadlay ayaa tacsi kadib sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed laba bangi oo islaami ah oo ay ka furan dalka Jabuuti Dahabshiil Bank iyo Salaam African Bank oo qayb weyn ku lahaa Allah u naxariistay marxuum Jaamac Maxamuud Xayd ayna ganacsatada